Suddenly, I just heard someone like bang, like that. dadka ama shakhsiyaadka lagu samaynayo cunsuriyadaha kala duwan iyadoo lagu eedeynayo kalarkooda qowmiyadooda waddanka ay ka yimaadeen ayaa aad u sii badanaya sidoo kale Lisa oo ka mid ah 4 gabdhood ee Blackpink balse u dhalatay waddanka Thailand ayaa la kulantay hateful comments ee hadalla ay ka muuqatay gabi ahaanba cunsuriyad sida oo dhaxda caanka noqotay aadkana u damaqa badan ee uu soo dhigay wiil Koreana oo uu leeyahay haddii aad u fiirsato Lisa oo bilaa make up waxaad u malaynaysaa totally inay tahay gabadh Raashiyaana lehna awood sare haddii si aad aragto iyadoo bilaa make up timaheeduna ay yihiin madow kalarna aanay lahayn waxaad markiiba ogaanaysaa inay tahay faqiirad u dhalatay waddanka Thailand iyo gabadh Thailandisa oo yar aan waxba haysan tan ayay gabi ahaanba bahdil ku ahayd iyo Yasmo dadka reer Thailand waddankooda iyo gabi ahaanba shakhsiyada dhabta ah ee gabadha Blackpink iyo yaraantooda Lisa. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Commentiskan iyo hadalkan foosha xun ee cunsuriyadda ayaa waxuu noqday viral waxaana aad uga cadhooday caalamkoo dhan iyagoo diidan gabi ahaanba qaabka ula dhaqmay fanaanada leh shacbiyadda aadka u ballaadhan ee ku kala nool caalamka xataa waxaa si weyn uga cadhooday kana xumaaday dhammaan dadka reer Thailand oo dhan waxaana laga sii daayay si live ah iyo qaab gabi ahaanba live ah telefishinada ugu waaweyn dalkaasi Thailand dhacdadan iyo hadalladan cunsuriyadda ee ku aatan Lisa middan waxaa loo arkay bilow kaliya kadib markii ay soo baxday tan ka sii daran ee ah Lisa waa qof la buunbuuniyey oo mana qalanta jacayl intaasi leeg waxaana wax ku tahay xubnaha kale ee Blackpink balse waa shakhsiyad gabi ahaanba daciif ah waan awood lahayn tan ayaa dhaawac walwal iyo tag cadaan ku ahayd Lisa iyo fanaanada Blackpink kuna kaliftay inay la ilmayso marar badan. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. kadib markii ay hadallada foosha xun cunsuriyadda u muuqda iyo sidoo kale bahdilka loo adeegsaday iyagoo isticmaalaya xubno Koreana iyo shakhsiyaad ku nool gudaha dalkaasi South Korea ayaa waxaa iska rab taagay si weyn oo difaacay gabi ahaanba taageerayaasha kooxda Blackpink ee loo yaqaano Blinkies kuwa oo mug iyo baaxadaad u ballaaran ku leh daafaha caalamka waxayna soo saareen hashtag sheegaya mar walba inay garab taagan yihiin dadka jecel ay ka badan yihiin inta nacab iyo xubnaha yar ee wax ka sheegaya iyagoo leh Lisa we will protect you markasta waxaan nahay dadku difaacaya garabkaaga dambana taagan markii ay hadallada xanta nacaybka iyo cunsuriyadda gabi ahaanba suuqa u galeen gabadha leexda Lisa ayana ka timi waddanka Thailand lagana dhex saarayo gabi ahaanna laga fooqayo xidigihii kale ee Blackpink iyo saddexdii gabdhood ayaa qolyaha social media isticmaala hateriska iyo dadka nacabka u adeegsadeen xidigadan gabi ahaanba inay ka tegayso kooxda Blackpink balse waxay ahayd mid been abuur ah iyo waxaan soconaynin waxayna tilmaantay isla markiiba kadib markii ay waraysiyo muuqaal dhaba duubtay Lisa inay ammaan ku dareemaysay dhexdooda gabdhaha Blackpink ayna u muujiyaan jacayl oo dhan qaasatan xubinta iyo gabadha loo yaqaan Jisoo waxaana la xasuustaa marar badan oo ay Lisa duubaysay albana oo khaas ah iyo solo songs heese kaliya iyo sidoo kaleba waqti ay ka maqnayd teamka ayna la joogin kuna sugnayn halka ay joogaan inay ka helaysay warqado emotional oo xambaarsan dareen oo ay u soo diraysay gabadha leexda Jisoo Lisa inta ayna furinba warqada oo waxay xagga sare kaga aragtay sawir ay wada galeen Jisoo xilli ay ku sugnaayeen jasiiradda caanka dhanka South Korea ee Jeju Island weliba waqti ay wada faraxsanaayeen tan ayaana xasuusta qirada leh ku dartay qalbigeeda kuna kaliftay inay ilmayso 가지고 아이 감동이야. mar kale markii ay dhex gashay warqadda waxa uga soo baxay ereyada muujinaya dhowrista weeyilnimada iyo sidoo kale inay tahay qof ilaalinaya kana daaweynayada iyadoo leh ayamahan cimiladu waa kulayl ha xidhan dhar culus si aanad u guban Lisa soo laabo waan ku xiisnay waxaan wada cuni doonaa cunto sweet ah ay cunooyinkii aad jecleed adigu tan ayaa muujinaysay jacayl iyo dhowris iyo inay ka weyn tahay Jisoo gabadha leexda Lisa
gebi ahaana ay tahay protectorkeeda qofka ilaalinaya markastana garab taagan. waxaana la sheegaa middan inay tahay gebi ahaanba waxay ku ilaawayso wax kastoo ay kala kulantay gudaha dalkaasi South Korea iyo dadka necab, maadaama ay haysato dad jecel, dhowraya, ixtiraamaya, sidoo kalena ilowsiinaya wax kastoo loo geystay. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. mar kale arrinka cunsuriyadda ayaa waxaa isna aad uga xumaaday saaxiibkeedii Iiraankii fanaanka ay isku waddanka Thailand ka wada yimaadeen ninka leexda Bambam iyo kooxda Godshaban. waxaanuu yidhi waa mid ka mid a waxyaalaha ugu waaweyn ee mar walba ku dhaca fanaaniinta ka timaada waddankaasi Thailand hadallada noocan ah ee ka muuqata cunsuriyaddu. Lisa waxaana qanaylay yareenteedii wax ka badan 11 sano, waa shakhsi la awood iyo talent dabiici ah, waxay haysataa taageerayaal aad u badan oo tusaya jacayl ee gebi ahaanba support. aniga xataa waxaan arkaa hadallo cunsuriyad leh, waana sababtaan waxay marar badan Lisa anu inay ka murugoonayso. waxayse gebi ahaanba ii sheegtaa inay tahay mid faraxsan. dhibaan ku dareemayna waxay leeyihiin dadka iyo gebi ahaanba dadka daciifka ee ka hadlaya dabadeeda, waana sababtaan u idhi kuwa jecel ayaa ka badan gebi ahaanba gabadha leexda Lisa, halka nacabka iyo midharka wax ka sheegaya hadalkooda la boonbooniyo. arrimahan cunsuriyadda iyo hadalhaynta faraha badan albanadii khaaska ahaa ee gebi ahaanba adkaysan ka amuujisay ayaa waxay ku heshay taageerayaasha ugu badan. waxaana la xasuustaa sanadii 2019 Lisa inay haysatay flowers aad u kooban, balse ilaa iyo hadda ay haysata wax ka badan 63 milyan oo qof, halka dadka necab ay yihiin dad fara ku tirisa gebi ahaana waxoodu aanay wax macnaa samaynaynin. เป็นคนคิดดีทำดีอยู่แล้วถึงตอนนี้อาจจะมีบางคนที่อาจจะยังไม่รับรู้แต่ผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ย intaasoo qura maaha waxyaalaha warwarkii cabsida ku abuuray Lisa iyo taageerayaasheeda Blinkis waxaa sicirka isku shareeray cunsuriyadda iyo hateful comments-ki kadib markii uu bartiisa Twitter-ka qof aan la aqoon soo dhigay hadal u dhigan sidan: marka ay Blackpink soo koraan stage-ka waxaan si dhab u toogan doonaa Lisa, idinkana waxaa idinku waajibaa inaad gebi ahaanba tidhaahdaan bye bye, maxaa yeelay taasi waxay noqon doontaa markii u dambaysay aad arkaysaan wejigeeda foosha xun. Heragli face again. Yup. Once Blackpink has their comeback stage, I'm going to shoot Lisa, and that will be the last time you will ever see her face again. waxaa la sheegaa arrinkan inuu beeray gebi ahaanba naxdin iyo murugo kaliftay inay qaado baqdin iyo shaki dheeri ah, heer xataa qalbina ay ulwasho gabadha la yidhaahdo Lisa, kalsoonideeduna gebi ahaanba ay daciifto. markiiba waxaa report gareeyay akoontigii iyo qoraalkii foosha xuma ee uu soo dhigay qofka nacabka ah taageerayaasha kooxda Blackpink ee lagu magacaabo Blinkis. waxaana hawada ka baxay akoonkii la soo dhigay hadalkan u muuqday dilka ee gebi ahaanba nacaybka. intaasoo qura maaha, xataa waxaa soo dhigay Instagram story-ga oo qof u muuqda gaanka iyo dilaaweyn, isagoo isna yidhi waa hubaal waan haystaa hadda qoriga waana sugaynaa xilligaan dili lahayn. markan ayayna ahayd markii ay garab istaaga weyn u muujisay una kordhisay gaadhka iyo ilaalada shirkadda Weji Entertainment oo leh kooxda Blackpink ahna tii soo tababartay ilaa haddana ay ka marqaataan si ay gebi ahaanba u sugtay amniga 40 gabdhood gaar ahaan Lisa. si la mid ah waxaa war ku gaadhay dowladda South Korea taasoo gebi ahaanba iyaduna ka hadashay nacaybkii hadallada foosha xun ee lagula kacay fanaanada reer Thailand ee yaraanta Blackpink gabadha loogu yeedhala Lisa. hanjabaadaha, dilka iyo gebi ahaanba waxyaalaha nacaybka leh ee ka dhaca dalkaasi South Korea maaha intanoo qudha keliyana kuma ay dhicin Lisa, balse waxay hore ugu dhaceen ninka la yidhaahdo Taeyangi oo igu hanjabin hore isagoo stage-ka taagan inay u dili doonaan waqti ka mid ah waqtiyada. waxaa sidoo kale aad looga xumaaday mar kale hanjabaadda ku aadan ninka la yidhaahdo Park Jimin ee ah inay isna dili doonaan, taasoo meel kasta la dhigay hubka, caddaymaha iyo muuqaalada muujinaya sida gebi ahaanba loo cabsi gelinayo fanaankan iyo xiddiga kooxda BTS ninka la yidhaahdo Park Jimin. waan ka soo hadli doonaa haddii aad rabtaan ama u baahantiin sheekada aadka u dhibka badan ee ku saabsan Park Jimin iyo dilka loogu hanjabay iyo waxyaalihii laga yeelay intaba, balse hadda waxay diiraddu inoo saarantahay kana hadli doonaa keliya mawduuca ku saabsan gabadha Blackpink iyo fanaanada la yidhaahdo Lisa. I just heard someone like bang. It's like
like that, but I couldn't open my eyes. gabadhan iyo fanaanada Blackpink ee Lisa ayaa loo yaqaanaa qof qalbi jilcoon fanaanad masaakiin ah oo balse gabi ahaanba qof aad u karti badan marka la eegayo shaqadeeda qobka ciyaarka iyo sidoo kale dansiga tan ayaana keenaysa inay muujiso qalbi jab iyo ohin xilliyada hadallada aadka u daran iyo duritaanka ay kala kulmaysa bulshada kala duwan waxaase gabi ahaanba bushaaro ah inay haysato taageerayaal aad u baaxad badan marka la barbar dhigo xubin kasta oo ka tirsan Blackpink waxaana la aaminay gabi ahaanba inaanay soconaynin kooxda Blackpink marka loo eego awoodda ay leedahay haddiiba ay ka baxdo amaba wax gaadhaan gabadha la yidhaahdo Lisa waayo waa xubinta ugu fiican dhanka raabka sidoo kale dhanka jaaska iyo qobka ciyaarka gabi ahaanna waxay ka mid tahay xidigaha iyo cidda loogu daawashada badan yahay ama loogu jecel yahay tiimkan la yidhaahdo Blackpink intaas ayaanan ku soo koobaynaa muuqaalkeena maanta waxaana dib idinkala socodsiin doonaa waxyaalaha ka soo kordha gabi ahaanba kooxaha kala duwan ee K-popka ee Blackpink iyo sidoo kale dhacdada cunsuriyadda leh ee lagu qaaday gabadha la yidhaahdo Lisa ana ilaawina waxaan idin la wadaagi doonaa sidoo kale sheekada Lisa ku dhacday ee dhaca hantideeda loo geystay gaadhaysa 1 milyan tuugadii ku cadaatay gabi ahaanba xogayaheedii wixii laga yeelay wixii ay ku dhamaatay iyo gabi ahaanba waxyaalaha update-ka ah ee ka soo baxa kooxaha K-popka dhammaantood intan ayaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeena maanta fadlan ha ilaawin inaad like garayso subscribe si aad u hesho muuqaalka xiga hoosna igu dhaaf qaybta commentiga codsigaaga iyo muuqaalka jeceshiin inaan ku xigsiino midkan aad ayaad u mahadsan tahay In particular, the criminal who threatened Jimin, who was scheduled to attend overseas concerts, talked about specific methods and even showed the concert ticket, making many fans nervous.